haddaba ayuha alaxiba waxaynu u baahanay ramadaan in loo diyaar garoobo. munaafiqiintii ka hadhay dagaalka ee dabeetana cudurdaarka nebiga ula yimid dagaal maxaa la yidhaha tabuuk markii loo baxayey. tabuuk waa dowlad weyn baa dagaal lagala hortegayey oo dowladdii romanska iyo dadkii raacsanaaya. wakhtiguna wakhti kulul buu ahaa oo wakhtigan khaliijka 40 iyo 50 ka dhacaan, yani wakhti samara xagaaya bay ahayd. dabeetana bil wakhti ku dhadhowna waa la lugaynaya xagaaga. marka raggii daacadda ay ka ahaydna way u diyaar garoobeen inay lugta iyo wuxuu fuuli lahaa iyo bishaa siduu socon lahaa. kuwii waxay fuulaan waayeen mu'miniinta ahaa waa kuwii nebiga u yimi iyagoo ooyo le ilaahay rasuulkiisa iyo wax nasaar ma haysanno, geel iyo farda iyo waxaanu fuula toona ma haysanno, inaanu kaa hadhnana ma rabna, waa kula dagaalgalaynaa ee waxaanu raacna nasaar. qolaa jirtay munaafiqiin oo iyagu maadaama noloshu ay adkaatay, xagga kale marka laga eegana waa wakhtiga timirtu bislaato oo beerahay lahaayeen carabtu wakhtigaasay u bislaataa. markaa nimankii munaafiqiinta iyagu marmarsiiyey sameeyaano way hadheen. ilaahay oo qadiyaddooda ka warramayabaa wuxuu idhi walow araaduu alkhuruuja laa cadduu lahu cudda baa ilaahay yidhi. hadday marka horeba iraada doonitaan hadduu jiray inay rabaan inay baxaan way u diyaar garoobi lahaayeen baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala. ee diyaar la'aantu waxa ay tilmaamaysaa inaanay rabin maxay inay baxaan. haddaba soomku ayuha alaxiba wuxuu inaga rabaa diyaargarow. wuxuu inaga rabaa diyaargarow ah inaynu u diyaargarowno mansiladii loogu talagalay qofka mu'minka ah soonku inay gaadhsiiso inayna gaadhsiiso. sidaa awgeed ayaa salafi lumma markay ramadaantu soo dhowaato waa ku farxi jireen. dee saan ugu farxinba qofka muslimka ahay rukun arkaantiisii diinta abaa ku soo socdee. soomay rumaysnin islaamkuba inuu 5 rukun ku tiirsan yahay. 5 asaloo waaweyn buu leeyahay. 5ta asal maxaa ka mid ahaa? shahaadada iyo salaad iyo zako iyo soon iyo xaj. idan rukun ka mida arkaanul islaamkii markuu soo socdo qofka mu'minkii wuu diyaar garoobaya. nabi maxamedna calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa wuu ugu bishaarayn jiray. xadiidka saxiixi sunan nisaa'i ku yaalla wuxuu nabigu leeyahy ataakum ramadaan shahrun mubaarak farada allahu caza wajalla calaykum siyaama tuftaxu fiihi abwaabu asamaa وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة هي خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم. نبي الصحابة الله الله رضوان الله عليهم أي نبي صلوات الله وسلامه وحليه ورياده رمضان بايدين تيمبو نبي لي وبالبركة سنة رمضان وبركة سنتي دمانتي إلهي وحيد كواجب يا ليبو نبي لي صون أبواب السماء ما الباب الجنة والله فراه. أبواب السماء والله فراه ماشينا الأقبلية. أبواب الجنة والله فراه يدل إن كل الرجالين. أبواب الجحيم أنا أما جهنم أنا والله حدا. شيطان مدى وين إذا كيف فوقينا يردنا نواد كقبنا يا بشاس بالليل. شياطين توا إجازة كومبلسري ليف بالاسية كوا واوين أردن واحدين بشتانينا. هبين بانا كتشربوا نبغوا يري كم بلاد كخير بدن كم بلاد عبادات وينتي ودوري سيدات صنادات هبين كخير بدن باكرة وبشان كمدا من حرم قفك لقى منعيه هلي ويا خير كذا رمضان تأمه هبين كخير كذا قفك ويا فقد حرم كاس خير هلي ما يبالي. هذا النبي عليه الصلاة والسلام وبشارين يا صحابة أبو بشارين يا وحنو بشارين يا وقت يدا لم يدهينين وصاص عضو لما كدو جارته السيسن الكوحيبية وقت كاستقلب كيسيبيا مثلا مركا عيد الربانين وحيبيان عيد قال هذا ما عيد مسلمان نقطه عيد ده وحصعنا يوردن بيسود دياريا وحنا نو أركا وقت ير وآن بدنينو آد لو فائدي كراين وشرو فائدوين بدن لهليو قفك مسلم كي مركا بشتاني وبلا هادو خير بدن
وبلو قفك مسلم كي مع الله جملة وكل باع مشترينيه وبلا ضالين كرته دوري سيدات سنادات بد هبين ضالين كرته دوري سيدات سنادات عمري وحياد عبادة الصبين كاري لهاي أيها هبين كم إذا رمضان تات صبين كاريسا إذا وبلا أن وقتك أنت سكالك ولا مدهين سادر هذا قفك مسلم كي وديار قروبية